كن مع الله يكن دوما معك وبأهل الخير دوما يجمعك. كن مع الله يكن دوما معك وبأهل الخير دوما يجمعك. احفظ الدين وكن من أهله فبه في كل أرض يرفعك. ارفع الشكوى له معترفا بذنوب قد أقضت مضجعك. كن له عبدا ذليلا خاضعا بث شكواك لرب يسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. waxaynu bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala kitaabkan la yidhaahdo min atyab alminax fii cilmi almustalax. kitaabka waxaa alifay oo ka qayb qaatay isugu tegay taaliifkiisa laba sheekh waa cabdilmuxsin ibnu xamed alcabaad. sheekhaas waa sheekh haniyun can atacriif say culimmadu yidhaahdaan, bimacnaa tacriif ooma baahnaa. shayga hadduu yahay shay laiska garanayo, yacni tacriif ooma baahna. wuxuu dhashay sheekhu 1353 hijriga ayuu dhashay. ilaa yowmina haadana waa nool yahay sheekhu oo weli ma dhiman. cilmiga wuxuu ka qaatay cilmo fara badan oo cilmo waaweynah. culimmadaas ay ka mid yihiin sheekha la yidhahdo maxamed ibn ibraahim aal sheykh, iyo sheekha macruufka cabdilcasiis ibnu baaz, iyo sheekha la yidhahdo maxamed alamiin ashanqiiti, iyo sheekha la yidhaahdo cabdiraxmaan alafriiqi, iyo sheekha la yidhaahdo cabdirasaaq alcafiifi. oo culimmadiisa ragga ugu muuqda weeyaan raggaasi. acmaasha uu qabtay ama xilalka uu qabtay waxaa ka mid ah inuu noqday naa'ib ara'iis aljaamica alislaamiya xilligii uu ahaa sheekh la yidhaahdo cabdilcasiis ibnu baaz, jaamacadda ra'iiska ka ahaa jaamica alislaamiya bilmadiina. isaguna wuxuu ahaa naa'ibkiisa. markii dambena isagaaba ra'iis ka noqday oo ra'iisuljaamica ayuu noqday. wuxuu leeyahay sheekhu duruus fara badan iyo kutub fara badan ayuu leeyahay. duruustiisa waxaa ka mid ah tasjiiluu duubay kutubu sunan, afarta sunan iyo saxiixaynka bukhaari wa muslim ayuu duubay. oo duruus joogtaa wuxuu ku leeyahay almasjid annabawi ee wuxuu ku leeyahay yani markaa duruus mustamir ah. kutubta xadiidkana wuu sharxay. kutub gaar uu alifay baa jirta wayana fara badan. kutubtaasi waxaa lagu soo aruuriyey yani kitaab. kutubtaas yani majmuucatu mu'alafaat asheekh cabdilmuxsin alcabaad baa la yidhaahdaa. ilaa 8 majalladood taqriiban meelahaas ayaa markaa lagu soo aruuriyey. waa markaa nin caalima weeyaan oo cilmiga xadiidka gaar ahaan yani baac dheer ku leh. sheekha labaad oo wax ka alifay risaalada waxaa weeye sheekha la yidhahdo cabdilkariim muraad ibnu cali. isaguna wuxuu ka mid ahaa mudarisiintii aljaamica alislaamiya ayuu ka mid ahaa. kutubtiisu ma badna. kutubta yani markaasi loo nisbeeyey ee uu qoray waxaa ka mid a kitaabkan oo uu la mushaarakeeyey cabdilmuxsin alcabaad. waxaa kaloo ka mid a kitaab la yidhahdo tashiilu lmantiq, yani mantiqi baa la fududaynaya, cilmiga mantiqa la yidhaahdo. waxaa ka mid ah tarjama uu tarjamay qur'aanka oo luqa la yidhaahdo alluqa albaruuhiya uu u tarjamay, yani ku fasiray. lianna qur'aanka luqaad fara badan baa lagu tarjamay oo luqa soomaaliya ay ka mid tahay. marka qur'aanka macaanidiisa ayuu tarjamay sheekhaas oo luqadaas u tarjamay. sheekhu waa dhintay raximah allahu tacaala 1428 hijriga ayuu dhintay oo waafaqsan 2007 hijriga miilaadiga 2007 miilaadiga ayuu dhintay.
waa 12 sano taqriiban ama 12 sano taqriiban meelaha ka hor ayuu sheekhu dhintay rahimahullahu wa rahima al-jamii' macruufka way culimadu yiraahdeen yani kutubta ibn taymiyah ayuu aad markaasi u xifdsanaa oo dil la weydiiyo wax ku saabsan kutubtaasi wuxuu ku sheegayaa masalada uu ka hadlo ibn taymiyah meesha ay kaga sugan tahay kutubtiisa yani markaasi bil juz wa bis safha wuxuu qoranayaa masalada ibn taymiyah wuxuu kaga hadlay juzkaas iyo safxadaas uu kaga hadlay marka culamaa al-Madiina ayuu kamid ahaa sheekhu rahimahullahu ta'ala tarjuma fara badan markaasi lagama samaynin laakiin culimada casrigan ayuu markaa kamid ahaa waxay labada sheekh yiraahdeen rahimahumullah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wahtada bihadihi ila yawmiddin alhamdu mahad jinsiga mahad kaa'inun lillah ilaah baa iskale oo ilaah baa usugnaatay allihi rabbil alamin caalamka yani rabbigoodaha caalamna waa maa siwa allah waxa ilaahay ka soo haray ayaa caalam la yiraahdaa wassalatu amaan iyo wassalaamu salaam iyo nabadgelyo salaad iyo yani salaam ha ahaato calaa sayyidil anbiyaa'i anbiyada sayidkooda wal mursaliina mursaliinta iyo kuwa la diray yani sayidkooda yani korkiisa ha ahaato xamdigu ku bilaabay sheekhu waana daabiga culimada yani labada sheekh waxay ku bilaabeen xamdiga waana daabiga culimada waxayna ku dayanayaan kitaabka quraanka ah waxa laga bilaabay alhamdulillahi rabbil alamin xadiidka laakiin ku soo arooray yani kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa abtar wa hadith asagu aan sugnayn weeyaan xadiidka macnaha sheegaya ma sugna tayib wassalatu wassalamu culimadu waxay yiraahdeen in la israaciyo salaada iyo salaamta ayaa fiican in la kala reebana waa makruuh oo salliga lagu kaaftoomo salaamta laga tago waa makruuh bay yiraahdeen waayo quraanku ma kala reebin oo quraanku waxay ku soo aroortay iyagoo markaa wada socda inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima marka in la kala reebo oo yaani salliga lagu kaaftoomo waa makruuh bay yiraahdeen saasa marka isku raacinayaa salaada iyo salaamta salaadu yaani markaasi salaatullahi ala nabiyhi waxa weeyaan thanaa'uhu alayhi fil mala'i al'a sida ku fasiray abul ali ar-riyahi ama yaani salaada allah uu ku salinayo nabigiisa waa inuu amaano oo fil mala'i al'a oo markaasi agtooda ka amaano taas weeye salaadu salaad iyo salaam ha ahaato ala sayyidil anbiya'i anbiyada sayidkooda nabiga asaga sheegay calayhi salaatu wassalaam inuu yahay nabi aadam caruurtiisa inuu sayid u yahay asaga inoo sheegay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri ana sayyidu waladi aadam wala fakhra nabi aadam caruurtiisa sayidkoodii baan ahay arrinkaasna faan igama ahan oo kuma faanayo waa martabo markaasi ilaahay uu siiyey anbiyaduna markaasi way kala fadli badan yihiin tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din طيب marka waa sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin mursaliinta anbiya waa jamcu nabiyyin mursalina waa jamcu rasuul marka anbiyada iyo mursaliinta kuwa la diray iyo anbiyada dhamaantood yaani sayidkooda korkiisa ha ahaato salaadaas iyo salaamtaasi nabiyina ay ala nabiyina nabigeena korkiisa ha ahaato salaadaas iyo salaamtaas muhammadin muhammad korkiisa ha ahaato oo asmaada nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayuu markaa ka mid yahay muhammad magacyo fara badan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam muhammad baa ka mida ahmed baa ka mida almaahi baa ka mida alxaashir baa ka mida alcaaqib baa ka mida magacyo fara badan ayaa markaasi u soo arooray tayib quraanka laakiin waxa ku soo arooray ahmed iyo muhammad labadaas ku soo aroortay ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasuulullaahi wa khataman nabiyyin ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وعلى آله آل كركه أهاته صلاة داس سلام تاس آل كنا
culimadu waxay yidhahdeen haddii la joogo maqaamu ducaa waxaa loo jeedaa cid alla ciddii nebi maxamed raacday diintiisa ayaa loo jeedaa. ayib culimada qaar yidhi waxaa lagu gaaryeelayaa nebiga qaraabadiisa, weliba kuwa mu'miniinta ah, qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniintooda ayaa markaa loo jeedaa. haddii markaasi laga dambaysiiyo saxaabadii iyo atbaac laga dambaysiiyo, marka aalku wuxuu ku dhacayaa qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo mu'miniinta ah. wa saxbihi waa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. saxaabaduna waa la garanayaa, yani saxaabi waxaa la yidhaahdaa cid kasta oo nebi maxamed la kulanta calayhi salaatu wasalaam. man laqiya annabiya mu'minan bihi wabaata cala dalik walow takhallalat alridda cala alqowli asaxiix. yacni waxaa la yidhaahdaa cid nebi maxamed la kulanta calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa rumaysan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaana ku dhintay ayaa la yidhaahdaa yani saxaabi. waman tabicahu iyo ciddii nebi maxamed raacday calayhi salaatu wasalaam diintiisa raacday, salaadaas iyo salaamtaasi korkooda ha ahaato. wahtadaa ku hanuunay bihadyihi hadyigiisa iyo hanuunkiisa ku hanuunay ilaa yowmi iddiin ilaa yowmi aljazaa laga gaaro maalinta is-abaalmarinta oo yowm alqiyaama ah. yowm iddiin waa min asmaa'i yowmi alqiyaama, ilaa maalinta laga gaarayo yacni dadkaasi salaad iyo salaam korkooda ha ahaato. wa bacdu intaa kadib ay bacda yani marka alxamdalah waalsalaatu wassalaam fa haadihi mudakiratun, tani waa mudakiradaasoo fii cilmi alistilaaxi ku saabsan cilmiga mustalaxa. mudakiradu yani waxaa loo isticmaalaa carabiga mucaasirka mudakira waa daftarun sagiirun yudawanu fiihi maa yuraadu istirjaacuhu waistixdaaruhu fi aldihni min umuurin aw acmaal aw mawaaciid. sida markaa uu ku tacriifinayo mucjam alluqa alcarabiya almucaasira wuxuu leeyahy mudakiro waxaa la yidhaahdaa waa buug yar weeye, daftarun sagiir, buug yar yudawanu fiihi lagu qoro maa yuraadu istirjaacuhu waistixdaaruhu fi dihni, shayga aad doonaysa inaad xasuusato aadan ilaawin, buugga yaroo lagu qorto yani kaasaa la yidhaahdaa min umuurin aw acmaalin aw mawaacid. waa buugnodka ka la yidhahdoo kale weeyaan, kaasa waxaa la yidhaahdaa mudakira. ayib waxaa laga soo qaatay min dakara ayaa laga soo ishtiqaaqay ficilka dakara yudakir fahuwa mudakir. waa markuu yahay mudakar fahuwa mudakir. mudakira marka waa mudakir oo markaa la ta'niifiyey weeyaan. marka mudakira waa mid wax xasuusinaysa weeyaan, ama waa mudakiratun waa kitaab yar weeye. mudakira waa kitaab yar oo fii cilmi alistilaax ku saabsan cilmiga mustalaxa. ayib mudakiradaasoo wifqa almanhaj yacni manhajka waafaqsan, manhajkii almuqarari fi almachad athaanawi loo dejiyey, manhajkii almuqarar loo dejiyey fi almachad athaanawi macadka dugsiga sare attaabic liljaamica alislaamiya, yacni macadkaasoo attaabic raacsan liljaamica alislaamiya, aljaamica alislaamiya raacsan bilmadiina almunawara, jaamacadda marka ku taalla bilmadiina almunawara yani magaalada madiina. yani waxay tilmaamayaan culimmadu inuu yahay yani kitaabkan ay qorayaan kitaab yar oo ku saabsan cilmiga mustalaxa oo waafaqsan manhajka loo dejiyey macadkaas. bimacnaa inuu kitaabkani noqdo kitaab lagu dhigo yani macadkaas la socda jaamica alislaamiya, oo ardaygu intuusa jaamacadda gelin macadka marka hore uu soo dhiganayo, macadka markuu ka soo baxo kadib uu jaamacadda usoo gudbaya. marka macadka kutubta lagu dhigo oo muqararka u ah ayuu markaa kitaabkani ka mid yahay. sidaasay markaa culimmadu u dejiyeen inuu ka mid noqdo muqararaadka lagu dhigayo yani macadkaas. waxay yidhahdeen labada sheekh istaqaynaaha bimacnaa akhadnaaha, waxaanu ka soo qaadannay min kutubi a'immati hada shan, waxaan ka soo qaadannay mudakiradan min kutubi a'immati hada shani, shanigan iyo fannigan oo fannu cilmi mustalax ah a'immada yani cilmigan kutubtoodaan ka soo qaadannay. bimacnaa wax annagu aan iska ibtikaarannay maahan,
oo cudaysan nooga horraynin laakiin culimmadii fanniga wax ka qortay kutubtay qoreen baan ka soo qaadanay ayay labada sheekh leeyihiin ayib waxay labada sheekh yidhahdeen raximahumullah mucarifiina xaalaan tacriifinayno fiiha ay fi lmudakira mudakirada waxaan ku tacriifinaynaa kulla nawcin nooc kasta oo min anwaaci alxadiidi xadiidka noocyadiisa ka mid ah waxaan ku tacriifinaynaa biusluubin sahal qaab sahlan oo fudud wa cibaaratin waadixa iyo cibaaro ama weero waadixatin cad oo muuqda fa jaa'at way timid mudakiradii walxamdu lilaah ilaah baa mahad iska leh alxamdu lilaah mahadoo dhan allay u sugnaataye way timid mushtamilatan xaalay koobsatay calaa muhimmaati alfanni fannigan muhimmaadkiisii muhiimkii fannigan ayay koobsatay maca ikhtisaarin iyadoo lala qabo inay tahay mudakiro kooban iyadoo markaa mukhtasaro ah ikhtisaarkaasoo hayr almukhilli aan ahayn mid markaasi wax ka dhiman yihiin ama ikhtisaarkaasoo hayr almukhilli mid wax dhimaya aan ahayn yacni muraadkii iyo mujeeddadii aan wax dhimayn yani wax ka tegaynin wa duuna tatwiil ikhtisaarkaasoo wa duuna tatwiili tatwiil yacni sokodii ah bimacnaa aan aad loo dheerayn tatwiilkii almumilli ee wax daalinayey bimacnaa culimmadu waxay leeyihiin kitaabkani wuxuu koobsaday yacni intii muhiimka ahayd oo fannigan loo baahnaa waxba kamuus tegin dayib waxay kaloo yidhaahdeen kitaabku waa kitaab mukhtasara weeye kitaab mukhtasara weeyaan wuxuuna u dhaxeeyaa ikhtisaarkaasi bayna alikhlaali waatatwiil ikhlaal bimacnaa ma ahan kitaab aad loo koobay waxyaala loo baahnaa in la sheego aan sheegin maahan intii loo baahnaa wuu sheegay mutawalna maahanoo mid xadka dhaafsiisanoo yacni markaasi tafaasiil fara badan ay la socdaanna maahan yani intii la doonayey ayuu kitaabku koobsaday bayna alikhlaal waatatwiil wa samaynaaha waxaan ku magacownay mudakiradan yani damaa'irtaasi waxay u noqonayaan mudakiradii bay u noqonayaan wa samaynaaha waxaan ku magacownay min atyab alminax fii cilmi almustalax min atyab alminax deeqo kuwii ugu wanaagsanaa deeqahaasoo ku saabsan fii cilmi almustalax cilmiga cilmi mustalaxa la yidhaahdo minxadu alminax waa jamcu minxa waa jamcu minxa weye minaxu minxaduna waa shayga qofka la siiyo weeyaan minxa diraasiya ayaa layahay minxa diraasiya yani waa deeq waxbarasho weeye marka minaxu waa jamcu minxa minxaduna waxa qofka la siiyo weeyaan bilaa muqaabil ayadoo marka waxba aan laga qaadanin shayga la siiyo ayaa markaa la yidhaahdaa neefka xoolahoo lasa siiyo si qof markaa uu u soo maalo maniixa la yidhaahdaa maniixa ayib wallaha subxaanahu nas'al wallaha subxaanah alla keligii subxaanahu nasahnaaye ayaa nas'alu weydiisanaynaa an yanfaca inuu ku anfaco biha mudakiradan tulaaba alcilmi cilmiga kuwa dalbay bimacnaa ardayda inuu ku anfaco ayaan ilaahay weydiisanaynaa keligiis fa innahu maxaa yeelay alleh calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun alla waa awoodaa wax kasta alla waa awoodaa wa bilijaabati wa jadiirun alla wuu mudan yahay bilijaabati man dacaah ciddii barida inuu ajiibana alla waa mudan yahay aman yujiibu almudara ida dacaah waida sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci ida dacaan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum marka wa bilijaabati jadiir yacni alla wuu mudan yahay inuu ajiibo ciddii markaa barida oo wax weydiisata almu'alifaan yacni labada sheekh ayaa markaasi qoray hadalkan oo iska leh muqadamatun fii taariikhi cilmi lmustalax wa nash'atihi ay haadihi muqadima tani waa muqadimo ama muqadama muqadimatun iyo muqadama labadu waa bannaan muqadamatun waa mid la soo hormariyey weeye oo kitaabkii intaan la gaarin maqsuudkiisi baa laga soo hormariyey wey muqadama waa ism mafcuul muqadimana waa mid wax hormarinaysa weeye tuqadimu saaxibaha ciddii baratay hormarinaysaayo waxay ka hormarinaysaa yani liaqraanihi kuwa asaga la midka ah ayib marka waa muqadimo ku saabsan fii taariikhi cilmi lmustalax cilmiga cilmi mustalaxa la yidhaahdo taariikhdiisa muqadimo ku saabsan weeye
iyo wa nash'atihi cilmigan nash'adiisa nash'aduna waa bilowgii iyo koritaankii cilmigan uu koray ayaa markaa nash'ada loo jeedaa nasha'a asabiy marka la leeyahay waxaa weeyaan idaa shabba wanama markuu kobco oo koro weeyaan wayansha'u naashi'u alfityaani mina calaa maa kaana cawadahu abuuhu yani ninkii wuxuu yidhi wayansha'u naashi'u alfityaani yacni kuwa koraya waxay ku korayaan calaa maa kaana cawadahu abuuhu aabbihii wuxuu oga caada dhigay marka nash'adu waxaa weeyaan bilowgii iyo koritaankii cilmigan iyo maraaxishii uu soo maray ayuu markaa ka warramaya kaanat alculuum alislaamiya qad duwinat waxay ahayd culuumta islaamku qad duwinat mid la dawinay macnaa la qoray wa duwina macaha qoraalkaa la qoray culuumta islaamka waxaa lala qoray cilmu musطalax alxadiid cilmiga magacaas leh iyo wa usuuluhu iyo markaa cilmigan qawaacidiisa aslu shay wa asaasuhu waxaan loo jeedaa qawaaciddiisii baa loo jeedaa iyo tiirarkiisii ayib marka waxyaalahi la qoray waxaa ka mid aha cilmu musطalax alxadiid baa ka mid ahaa iyo cilmigaasi qawaaciddiisa ilaa ana dalika tadwiinkaas iyo qoraalkaasi culuumta la qorayey cilmiga musطalaxa la qorayey ilaa ana dalika tadwiina qoraalkaasi cilmiga musطalax alxadiidka la qorayey kaana wuxuu ahaa fii anwaacin mufaraqa noocyo kala tagsan buu ahaa noocyo kala tagsan ayuu ahaa ayib noocyadaasoo ku kala tagsan fii guduuni kutubi alcilmi kutubta cilmiga dhexdooda ku kala tagsan noocyo lagu kala geeyey kutubta cilmiga dhexdooda guduunku waa shayga dhexdiisa weeyaan wadalika arisaala kutubtaasi lagu kala geeyey oo lagu sheegay waxyaalo ka mida cilmigan waxaa ka mid aha karisaala kitaabka loo yaqaano alrisaala iyo waa laba kitaab kilaahumaa lilimaam ashaafici raximahum allahu tacala labada kitaabba waxaa leh imaam shaafici wa muqadimat saxiixi muslim kitaabka saxiix muslimka muqadimadiisa wa aakhir jaamic tirmidi iyo kitaabka jaamic tirmidi la aakhirkiisa yani sheekh labada sheekh waxay inoo sheegayaan raximahum ullah cilmigan musطalaxa markii ugu horraysay oo la qoray muusan ahayn ta'liif madax bannaan oo hal kitaab la isugu geeyey waxaa lagu sheegay wax ka mid ah fannigan ama culuumta yani markaa cilmi musطalax kutub yani markaasi kala duwan ayaa markaa lagu dhex sheegay kutubta lagu dhex sheegay waxaa ka mid ah kitaab arisaala kitaabka alrisaala wuxuu ku saabsan yahay cilmiga usuulka waana kitaabka ugu horreeyey oo cilmi usuul laga qoro lidalika wuxuu yidhi yani saaxib almaraaqi awalu man allafahu fi lkutubi maxamed ibnu shaafici almuطalibi yani cidda ugu horraysay oo cilmiga usuulka yani markaasi wax ka qora wuxuu ahaa maxamed ibnu shaafici almuطalibi kitaabkii uu qorayna wuxuu ahaa kitaabka loo yaqaan alrisaala risaala waxaa risaala loogu bixiyey waxaa ka codsaday sheekhii la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu mahdi baa ka codsaday inuu markaasi cilmigan usuulka wax ka mida u soo qoro markaasuu intuu qoray buu u diray saasaa marka risaala loogu bixiyey risaalada waa warqadda markaasi ayaa risaale la yidhaahdaa marka sheekhaasuu u diray culimaduna waxay yidhahan laba goor buu qoray oo tii hore marka hore uu qoray waa la waayey dib buu markaa sheekhu u qoray tii hore markuu qorayey wuxuu joogay bay culimmadu yidhahdeen baqhdaad buu joogay laakiin middan dambe isagoo masar jooga ayuu qoray marka laba risaalo ayay markaa noqoneen tii hore markaasi lama helin inta dambe weeye ayib kitaabka yani fii bacdi abacaat yani way la socotaayoo xagga horey kaga daabacantahay dabacaadka qaarkoodna waa laga fasliyey oo kitaab gooni iyadoo ah ayay markaasi si gooniya u daabacan tahay marka labaduba way jiraan iyadoo gaar u daabacan iyo iyadoo markaasi kitaabka ku daabacanoo muqadimo u ah marka risaaladuna waxaa loo qoray cilmiga usuulka ayay ku saabsan tahay ayib marka masaa'il ka mida cilmigan musطalaxa ayaa lagu dhex sheegay kitaabka risaalada kitaabka kana wax ka mida waa lagu sheegay kadalika kitaabkan saxiix muslimka oo macruufka ah muqadimadiisa wax ka mida cilmi musطalax ayaa lagu sheegay kitaabka jaamic atirmidi la yidhaahdo uu leeyahay alimaam abu ciisa maxamed ibnu ciisa
الترمذي يعني آخر كيسنة والغو شيغي كتاب العلل الصغير بالله العلل الصغير أي اللي يراهدا كتاب كاسوي كتاب الشيخ بركة إنه شيغيو وعنا شرحي ابن رجب الحنبلي شرح العلل بمعروف كيه شرح العلل هذا أركته وكتاب كاسوي يعني. فلما كانت 100 markii la soo gaaray boqolkii afaraad bimaana afartii boqol oo hijriga markii la soo gaaray waqtigaas فلما كانت 100 من الهجرة يعني boqolkii afaraad oo hijrada markii la soo gaaray waa qarniga afaraad وفيها نضجت العلوم qarniga afaraad bay culumtii bislaatay والفنون واستقر الاصطلاح اصطلاحنا usugnaaday اصطلاحنا يعني waa eray bixinta فنونta loo eray bixinayo markay sugnaatay afrad alqaadi khabarkii kaanada weeye afrad alqaadi wuxuu yani markaasi gaar yeelay alqaadi abu muxamed alxasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khallaad arraama hurmusi almutawafaa caam 360 min alhijra wuxuu gaar yeelay fan almustalax cilmiga mustalaxa wuxuu ku gaar yeelay bita'liifi الفات يعني سيجارة ومدح بنام بأقري في حالة بدائية حالة بلوءة طيب في كتابه المحدث الفاصل كتابك أقرن وحويان كتابك لو يقانو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي كتابك سقري الراوي وحوجه بمعنى الطالب بوجه والواعي وحوجه بمعنى العالم بوجه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي kitaabkaas ayuu qoray marka tasniif mustaqil ah ama ta'liif mustaqil ah ninka ugu horeeyay oo cilmiga mustalaxa ka sameeyay wuxuu noqonayaa sheekhaas al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad ar-Rama Hurmuzi Rama Hurmuzna waa magaalo yani magaalooyinka Ahwaaz bay ka mid tahay oo Hurmuz waa nimankii boqoradii markaasi ama nimankii madaxda ahaa oo farisiinta nin kamid ayaa hurmus loo oran jiray marka raamna waxay oranayaan luqa alfarisiya bimaana murad wa maqsad weeyaan marka waa kelima murakkaba macnaheedu wuxuu noqonayaa raama hurmusi ninkii yani hurmus loo oran jiray maqsadkiisii iyo muraadkiisii yani waa nisbo loo nisbaynayo waa makaan loo nisbaynayo ninkaas hurmus la yiraahdo weeyaan sheekhu marka beledkaas loo nisbaynayaa waa beled raama hurmusi waa beled markaasi kamida bilad faris طيب ثم توسع فيه العلماء انت كدب waxa ku tawassucay culimadii فجاء waxa yimid abu abdullah al-hakim an-naysaburi al-mutawaffa sana 405 من الهجرة waxa yimid sheekhaas abu abdullah la yiraahdo magaciisu maxamed ibn abdullah ibn nu'aym ad-dabbi محمد ابن عبد الله ابن نعيم الضبي المعروف بابن البيع عنكم يا ابن البيع كن يديسو يعني مركاسي وابو عبد الله الحاكم واللقب الحاكم واللقب النيسابوري نيسابور بمركا الله نسبينيه وبلد وحنا دنت شيخاسي 405 هجري ayuu dhintay فصنف فيه أي في فن المصطلح علم المصطلح wuxuu ka qoray sheekhaasi كتابا سماه معرفة علوم الحديث كتاب magacaas leh معرفة علوم الحديث ayuu ka qoray لكنه لم يهذب ما التهذيبين تهذيب waxa la yiraahdaa التصفية والتلخيص والتخليص التصفية والتخليص بل هذا تهذيبك بمعنى موسى كلهفين ويان لكنه لم يهذب موسى كلهفين أو مركاسي بعض المواضع وحكسوا أن تداخل ملاها قاركونا وكل إيرانيا ولم يستوعب يعني من كوبين مسائشي علمي قلنا موسى كوبين
oo dhammaan yani markaa muusan wada sheegin. uma jaa waxaa yimid gadaashiisa kadib waxaa yimid abu nucaym axmed ibnu cabdillaahi alasbihani almutawafaa sana 430 min alhijra. sheekhaas ayaa yimid facamila calى kitaab alxaakim, kitaabkii xaakim oo ahaa macrifatu culuum alxadiid wuxuu ku sameeyey mustakhrajkuna waxaa weeyaan in yani kitaab cid kale ay qortay inuu qofku yani uu ku wariyo bilasaniid. kitaabka alxaakim wuxuu ku warinayaa xaakim bisanad, masaa'isha uu sheegayo bilasaniid buu ku warinayaa. marka abu nucaymna mustakhrajka uu ku sameeyey isaguna bilasaniid buu ku warinayaa, laakiin sanadkii dariiqii uu maray xaakim ma marayee dariiq kaluu marayaa. markaasaa wuxuu kula kulmayaa xaakim sheekhiisii buu kula kulmayaa, ama shaykhu shaykhihi buu kula kulmayaa. yani culimmadu way inoo keeni doonaan mustakhrajaadka kutubta la yidhaahdo way inoo keeni doonaan. marka mustakhrajku waa noocaas weeyaan, kitaab cid kaa horraysa ee qortay baad sanad ku warinaysaa, hebel baa ii sheegay, hebel baa sheegay, hebel baa ii sheegay. saad u waddo kitaabkii yani markaa aad ku samaynaysa mustakhrajka waxaad kula kulmaysaa ninka iska leh sheekhiisaad kula kulmaysaa adoo dhinac kale ka yimid, ama sheekhaa sheekhiisaad kula kulmaysaa. kaasaa marka waxa loo yaqaanaa mustakhraj, kaasaa la yidhaahdaa. facamila calى kitaab alxaakim mustakhrajan, mustakhraj buu ku sameeyey. wa abqaa ashyaaan lilmutacaqib, ashyaana wuxuu ooga tegey lilmutacaqibi ninka markaasi ka daba tegaya. waxay ku fasireen culimmadu wa abqaa ashyaaan lilmutacaqib ay faatahu ashyaaun lam yadkurhaa, waxyaalo uusan sheegin baa jira. yani markaasi abu nucaym faatathu ashyaaun lam yadkurhaa fii kitaabihi yatacaqabu biha wayastadriku calayhi man yuriidu alistiycaaba. ashyaa buu ka tegey, ashyaadaas uu ka tegey yani markaasi waxaa ka dabageynaya cidda doonaysa inay markaa funuunta cilmigan ama masaa'isha cilmigan inay koobto ayaa ka dabageynaysa. oo waxay odhanaysaa yani abu nucaym kitaabkiisa mustakhrajka masalada noocaasa muusan sheegin, kaasaa marka ka dabageynaya. masaladaa muusan sheegin wuu ka dabageynayaa. marka saasuu u jeedaa wa abqaa ashyaaan lilmutacaqib. uma jaءa alkhaiibu, intaa kadib waxaa yimid alkhaiib abu bakr axmed ibnu cali ibnu haabit albaqhdaadi almutawafaa sanat 463 min alhijra. sheekhaas oo xilligaa dhintay ayaa yimid. fasanafa wuxuu qoray fii qawaaniin ariwaaya, ay fii usuuli alriwaaya wa qawaacidi alriwaaya. riwaayada iyo werinta wax la werinayo qawaaniinteeda, qawaaniinna waxaa loo jeeda macna usuul alqawaacid baa loo jeedaa. qaanuunu shay waa qaacidatuhu wa asluh. ayib, marka riwaayada iyo werinta qawaaciddeedii wax ku saabsan buu markaasi qoray. wuxuuna ka qoray kitaaban samaahu alkifaaya, alkifaaya fii macrifati usuuli cilmi ariwaaya ayaa la yidhaahdaa. alkifaaya fii macrifati usuul cilmi ariwaaya, kitaabkaas ayuu markaa qoray. wa fii aadaabiha ay aadaab ariwaaya, riwaayada aadaabteedana wuxuu ka wariyey kitaaban samaahu aljaamic liaadaabi alshaykhi wasaamic, ama aljaamic liakhlaaqi alraawi wa aadaab asaamic, saasuu macruuf ku yahay. aljaamic liakhlaaqi alraawi wa aadaabi asaamic, kitaabkaas ayuu markaa ka qoray fii aadaab alriwaaya, fii aadaab alshaykh liakhlaaqi alraawi wa aadaab asaamic. wa kutuban mufradah, wuxuu kaloo qoray kutub mufrad ah, bimacnaa uu ka qoray nooc mucayan oo anwaacda culumulxadiidka ah. wa kutuban ay waallafa kutuban mufradah, kutub mufradana wuu qoray bimacnaa gaar ah fii akari funuuni alxadiid, ay fii akari anwaaci alxadiid. noocyada xadiidka badankeedana mid kasta wuxuu ka qoray kitaab mucayan ah, kitaab mucayan ayuu ka qoray. ayib, wa asbaxa wuxuu noqday
kullu man jaa'a bacda alkhatiib cid kastoo timaada khatiibu albaqhdaadi gadaashiisa ciyaalan calaa kutubihi kuwa u baahan kutubtiisa kama qaala alxaafidu abubakar ibnu nuqta sida markaa uu sheegayba alxaafid abubakar ibnu nuqta yacni sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacala labada sheekh waxay inoo sheegayaan labada kitaab buu qoray khatiibu albaqhdaadi funuunta cilmiga musطalaxana badankeeda mid kasta wuxuu ka qoray kitaab gaar u ah culimmadii ka dambaysay marka waxay noqdeen kuwo ciyaal u ah kutubtiisa ciyaal macnaa fuqaraa baa loo jeedaa xadiis baa lagu soo wariyey alkhalqu kulluhum ciyaalullah fa axabuhum ila allaahi anfacuhum liciyaalih waxaa soo warinaya bazaar min xadiisi anas sanad ahaan ma asixin waa daciifun jiddan laakiin ciyaalun bimacnaa fuqaraa baa loo jeedaa alkhalqu kulluhum ciyaalullah bimacnaa fuqaraa'un ila allah allay u baahan yihiin marka maadaama kutubtiisa ay u baahan yihiin saasaa marka ciyaal loogu sheegaya culimmadaas marka ka dambaysay kutubtiisii ayay markaasi ka faa'iidaysteen hadalkaasna waxaa sheegay abubakar ibn nuqta oo hadalkiisu wuxuu ahaa abubakar ibn nuqta laa shubhata cinda kulli labiibin ana almuta'akhiriina min asxaabi alxadiisi ciyaalun cala abi bakr alkhatiib hadalka yacni ibnu nuqta uu yidhi waa hadalkaas weeye waxaan shubha ku sugnayn qof kastoo caqli u saaxiib ah agtiisa muta'akhiriinta oo min asxaabi alxadiid ah inay yihiin kuwa u baahan khatiib albaqhdaadi inay u baahan yihiin ibnu nuqtana waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu cabdilghani ayaa magaciisa la yidhaahdaa maxamed ibnu cabdilghani ayaa magaciisa la yidhaahdaa marka khatiib albaqhdaadi yani cilmigan aad buu markaasi wax ooga qoray kutub yani fara badan buu leeyahay kutubta uu qoro waaweyn waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo taariikhu baqhdaad taariikhu baqhdaad oo ah yani awsacu kitaabin litaraajim almuxadisiin culamaa alxadiid kitaab yani u tarjameeye waa kitaabka ugu weyn weeyaan taariikhu baqhdaad baa la yidhaahdaa marka kutubtiisu waa fara badan yihiin cilmigan xadiidkana yani kutub fara badan buu ka qoray uma jaa'a waxaa yimid alqaadi ciyaad ayaa yimid ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad alyaxsubi ayaa yimid almutawafaa sana 544 waxaa inoo qoran 450 baa inoo qoran laakiin saxdu waxaa weeyaan 544 weeye 544 weeye sida saxda ah uma jaa'a alqaadi baa yimid ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad alyaxsubi oo markaa dhintay 544kii hijriga fa jamaca fii dalik yani markaasi arrinkaasoo marka cilmi xadiidka ah wuxuu ka qoray kitaaban samaahu alilmaac fii dabdi alriwaayati wa taqyiid asamaac alilmaac magaca saxda waxa weeye alilmaac ilaa macrifati usuuli alriwaayati wa taqyiid asamaac hadalka yani ciwaanka ama macnaha kitaabka magaciisa saxda waxaa weeyaan alilmaac ilaa macrifati usuuli alriwaayati wa taqyiid asamaac magacaas weeyaan marka kitaabkaas ayuu sheekhaasna ka qoray oo markaa ku saabsan yani cilmiga yani sida laga fahmayaba ciwaankiisa yani wuxuu ku saabsan yahay usuul riwaaya riwaayada yani usuusheeda wa taqyiid asamaac uma jaa'a uma abu xafsin cumar almayaaniji